habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka caawiya caalamka waxaan ahay Cabdiraxmaan Bidhaan qodobada wararka ugu weyn waxay yihiin diyaaradii shalay dhacday Ethiopian Airlines ayaa la helay sanduuqii xogta kaydinayay sida ay sheegeen kooxda baadhista waxaanu la hadalnay ehelada qaar ka mid ah dadkii Soomaaliyeed ee halkaas ku dhintay diyaaraddaasi wararka kalena waxaa ka mid ah ururka sheegta dawladda Islaamiga ah ayaa dhufayskii ugu dambeeyay ku jira goobta Baaquus iyadoo kumanaana isdhiibeen warbixin gaar ah ayaan idinka haynaa dalka Suuriya 22 ambulance oo kaliya ayaa ka hawlgala mid kamid ah magaalooyinka ugu halista badan caalamka BBC-da ayaa la socdaashay dhakhaatiirta Afghanistan caawana iyo ciyaarahana waxaanu idin haynaa Zidane oo ku soo laabtay Real Madrid rugcadaagi soo rogaal celi iyo wararkii ugu dambeeyay sportiga kala soco BBC News Somali televisionka raadiyaha online-ka iyo bogagga bulshada halkan waa London caawa iyo caalamka aynu ku bilownaa diyaaradda Ethiopia ee dhacday ayaa 150 qof oo isugu jiray rakaab iyo shaqaale ku dhinteen diyaaraddan ayaa safarkeedu ahaa Nairobi waxaana burburtay daqiiqado ka yar kadib markii ay ka duushay magaalada Addis Ababa masiibadan ayaa hadaba asiibtay qoysas ka soo kala jeeda ugu yaraan 35 dal ugu yaraan 6 qof oo Soomaali ah oo dhalashooyin kala duwan haysta ayaa la sheegay in ka mid ahayn dadkii halkaas ku geeriyooday qof ka mid ah qaraabada dadkaasi saaran diyaaradda ayaa BBC-da la hadlay waxaan la dhashay oo ilmaabtilmeeda ahayn yarkii Cabduqaadir Maxamed Qaasim oo ku geeriyooday diyaaradda Ethiopian Airlines wuxuu ka soo raacay diyaaradda galabtii uu la soo hadlay wuxuu ka soo raacay diyaaradda magaalada London wuxuu ku soo degay Addis Ababa diyaaradii labaad iyadoo ka soo qaadayso anagoo airport ku taagan Nairobi ayuu diyaaradda ka soo raacay diyaaradda kadib hawada ku qaraxday Allah u naxariisinta muslimiin saarneed iyo asagana Allah u naxariisto marka anagoo airport ku sugayna diyaaradii markay imaan weysan la yaabaneen ayaa markaas ogaanay diyaaradda inay ku qaraxday oo ku dhintay marka inta dhimatana Allah u naxariisto dhacdadan ayaa hadaba noqonaysa markii labaad ee ay diyaaraddan cusub ee nooca loo yaqaan Boeing 737 Max 8 ay gasho shil noocan oo kala muddo 6 bilood gudahooda taasi oo dhalinaysa su'aalo ku saabsan ammaanka diyaaradda noocan oo kale October-tii tagtay haddii aynu eegno ayaa dalka Indonesia waxa ku dhacday iyaduna diyaarad sidan oo kale oo ay ku dhinteen 189 qof oo saara Ethiopian Airlines ayaa hadaba imka iyadu soo saartay amar ah in lagu hakiyo duulimaadyada diyaaraddan sidoo kalena dalalka Indonesia iyo Shiinaha ayaa iyaguna joojinaya duulimaadyada diyaaraddan Boeing 737 Max aadan Saalimin ayaa warbixin ku eegaya diyaaraddan diyaarad cusub iyo duuliye khibrad leh oo xaaladeedu wanaagsan tahay laakiin daqiiqada kadib markii ay kacday duulimaadka Ethiopian Airlines ee 302 waxa ay ku soo dhacday dhulbeereed cid kasta oo saarnaydna oo ay ku dhimatay xaqiiqdu waxa ay tahay maadaama ay wax yar ka soo hareen waxa laga garan karaa inay ballac ahaan ay ku soo dhacday marka kor laga fiiriyo goobta shilku ka dhacay waxa ay u muuqatay in uu god weyn ka qodmay diyaaraddu waxa ay ka soo kacday caasimadda Ethiopia Addis Ababa waxa ay duushay subaxnimadii 8:38 daqiiqo laakiin 6 daqiiqo oo kaliya kadib ayaa waxa ay lumisay raadeerka marka ugu horeysay diyaaraddu cagaha dhulka ka qaadayso oo ay kacayso waa marka ugu halista badan duulimaadka waa arrin la isla wada ogyahay wax kasta oo xilligaas qaldama waxa ay yeeshaan cawaaqib dheeraad ah oo marka ugu xun masiibo sababi karta Ethiopian Airlines waa diyaarad aad loo ixtiraamo waana tan Afrika ugu weyn waxa ay ku dhawaaqday in howlaheeda ugu horeeya ee Boeing 77 Max 8 bishii June la soo dhaafay diyaaradda shilka gashay waxa ay shaqaynaysay laga soo bilaabo bishii November laakiin inkasta oo safarka hawada uusan mar walba ammaan ahayn waa markii labaad ee nooca diyaaraddan oo kale ah uu shil ku dhaco kani waa burburka diyaaradda Lion Air 737 Max 8 ee Indonesia oo October-tii la soo dhaafay dhacay waxa ay sidoo kale ku dhacday daqiiqada kadib markii ay kacday wararka hordhaca ah ee shilka waxa diiradda lagu saaray dayactirka sida cilad ogaadaha ku rakiban diyaaradda waxa kale oo diiradda lagu saaray dadka wax ku noqday kuwaas oo ka kala yimid 35 wadan dalalka Shiinaha iyo Ethiopia ayaa joojiyay diyaaradda Boeing 737 Max 8 dawladda Ethiopia ayaa waxay sheegtay inay heleen sanduuqii madooba ee diyaaradda kaas oo ay rajaynayaan
inay wax badan ka ogaan doonaan sidii ay wax u dhaceen. wariyaha BBC-da Nairobi Suhayba Badqas ayaa la hadashay iyaduna Maxamed Ibraahim Odawa oo ay walaashii iyo gabadh ay dhashay ku geeriyoodeen iyaguna shilkaasi. waan aamini waayey maxaa yeelay waan sugayay waxaan dhahay warkaa iga xaqiiji inay diyaaradda ku jirtay maxaa yeelay waxaan filayay mar labaad inuu igu soo celiyo uu idhahaa way ka baaqatay diyaaradda ama diyaarad kale ku jirtay laakiin markii dambe waxaa la ii xaqiijiyey in ay gabadha ay soo raacday diyaaradda iyada. walaasha allah u naxariistay qof ceenkee ah ayaad ku tilmaami lahayd? qof aad u qiimo badan ay ahayd, wayna soo garab qabatay, heerka ayna soo gaarsiisay ilaahay unbaa abaalkeeda gudi karaa. qof dadka jecel bay ahayd, qof waxay ahayd dee dhibkii dadka ku dhici lahaa in ayada ku dhaca ay jeceshahay wax walba. waxaad ii sheegtay in halkan ay u imaanaysay in ay guursato, marka bal ka waran wiilkii ay u doonanayd iyo qoyskiina xaalkoodaba. wiilka horta isaga xaaladiis ilaahay unbaa sheegi karaa, ilaa iyo hadda hadal lagama hayo, galaas biyo ma cabaayo, micnaha ilaa iyo hadda waxaa waaye ilaahay asagana u saqiro. shilkii hadda waa dhacay, marka raqdeedii ma la helay? geeri ama nolol aan ku hayo ma laha. sawiradii aan arkayna waxaan arkay un bac un lagu gurahayo, wax inay kii kale yihiin hilib yihiin aan u maleeyey. marka wallaahi aad baan aga xumaaday. waa dee haddii aan maanta meydkeeda aan heli lahayn way noo ficnaan lahayd. bal markan aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka maanta. in ka badan 1000 garsoore u dhashay dalka Algeria ayaa diiday inay ka qayb qaataan doorashooyinka madaxweynaha soo socda haddii bay yiraahdeen madaxweyne Cabdicasiis Bouteflika uu ka qayb galo. waxaa dhacay dibadbaxyo ballaaran oo dalkaasi ka socday. madaxweynaha ayaa Switzerland ka soo noqday halkaasi oo lagu daweynay. dowladda Venezuela ayaa sheegtay in shaqaalaha iyo ardaydu aanay u soo bixin Isniinta kadib markii halkaasi korontadu ka go'day goobo badan. ganacsiga iyo dukaamada ayaa ma la furin muddo dhowr maalmood. madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa Baghdad jooga. waa booqashadiisii ugu horeysay ee uu ku tago halkaasi tan iyo markii uu xilka qabtay. waxa uu la kulmayaa madaxda Ciraaq, madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha, isagoo rajeynaya labada dal ay xiriirkooda sii xoojinayaan iyadoo la saxeexayo heshiisyo dhaqaale. dalka Suuriya goobtii ugu dambeysay ee ay halkaasi ka haysteen kooxda la baxday dowladda Islaamku ayaanu eegaynaa warbixin gaar ah ayaanu idinka haynaa tuulada Baqaas oo ay kumanaan ka mid yihiin kooxdaasi isdhiibeen. Cabdixaafid Caawil Ismaaciil ayaa eegaya. halkani waa dhamaadka wadadan. waxaa noo muuqda muuqaalkii ugu dambeeyay wixii ka haray kooxda la baxday dowladda Islaamka. calankoodii madoobaa in yar ayaa ku hadhay. dagaalyahanada Daacish nagama foga, xabadda wayna la soo gaari karaan. waxay ka tageen miinooyin, laakiin kooxdan waa u dhammaatay. cidi ma oga tirada hadhay. xoogaga dimuqraadiga ee Suuriya ayaa isu diyaarinaya duulaankoodii ugu dambeeyey. meelaan naga fogeyn waxaa ku sugan 12,000 oo taageerayaasha ISIS ah oo ay ku jiraan carruurtoodii. gabadha yar waxaa dhalay nin Faransiis oo ku jiray dagaalyahanada ISIS. ku heesamaysa shimbirayo heesa. waa hees kuul wadayn ah. waxay ku heesaysaa jannada iyo jihaadka. aabbaheedii xagjirka ahaa toddobaadkii hore ayaa la khaarajiyey. fikraddoodii nacaybka ku salaysneed ee haligtay deegaankan weli maskaxdooda ayay ka guuxaysaa. ordo ragga duuba ayay ku qaylinaysaa. waxaannu nahay dumarka dowladda Islaamka. ilaahay ayaa weyn ayay tidhi.
boqolaal ciidamadii daacish ahaa ayaa la dilay laakiin boqolaal ayaa badbaaday oo qabsaday tuulada yar ee baaquus waxay u sii jeedaan xabsi kurdiyiin ah dad badan oo taageera dawladda isku magacowday islaamka uma arkaan isdhiibka in laga guulaystay balse waxa ay u arkaan hakad ku yimi dhammaan waqooyiga suuriya waxaa jooga 10 kun oo ah taageerayaasha daacish oo lagu hayo xeryo iyo xabsiyo waxa ay sugayaan meesha ay ku dambayn doonaan Allahu akbar Ara waa Ciraaqi waa 12 jir waxa uu noo sheegay inuu doonayo inuu noqdo jihaadaloose Allahu akbar Cadiiba oo ah gabar yaasiidi ah waxa la muujinayaa ciilka ay u qabtay daacish waxay gubeen cabaayadii lagu khasbay inay xidhato islaamnimadana waa lagu khasbay waxa isku dhiidhiibi jiray dagaalyahano Marookaan ah waxay sheegtay in si joogto ah loo jirdili jiray la kufsaday ilmana ay dhashay والله كنت أعرف أهلي من قبل meelaan fogeen waxa aanu kula kulanay ninkii haystay waa Axmed ma ahayn adoon ayuu yiri waxa ay la nooleed xaaskayga iyo carruurtayda waxa uu la wareegay markii la dilay ninkii hore u haystay daacish way dabar gooyeen dadka Cadiiba iminka ayay nolosheedii dib u bilaabantay maadaama oo ay daacish u dhamaatay laakiin Suuriya dadkii khilaafada sheegtay iyo fikirkoodii sunta ahaa wali wuu sii qoyan yahay xusuusno wararka ugu dambeeyay BBC Somali waxaad ka heli kartaa bbc.com/somali weli waxa inoo soo socda ciyaarahana waxaan idinku haynaa Zinedine Zidane oo ku soo laabtay Real Madrid weli waxaad daawanaysaa caawa iyo caalamka balaadil xusuusiyo qodobada caawa wararka ugu waaweynaa diyaaradii shalay dhacday Ethiopian Airlines ayaa la helay sanduuqeedii xogta kaydsan sida ay sheegeen kooxda baadhistu weli waxa inoo soo socdaa talooyinka mid ka mid ah weeraryahanada kubadda cagta ee adduunka aadka loo qiimeeyo waa Robert Lewandowski iyadoo ay jiraan dadaalo caalami ah oo la doonayo in heshiis nabadeed laga gaaro dalka Afghanistan ayaa kumanaan rayidihii lagu dilaa halkaasi ama lagu dhaawacaa sanad walba sanadkii hore waxa uu ahaa mid ka mid ah kuwii ugu baanaa waxaana wax ku noqday in ka badan 10 kun oo qof rayida Kabul oo magaalada weerarada ugu badan ay ka dhacaan waxa ka shaqeeya 22 ambulance oo kaliya Farxaan Maxamed Jimcaale ayaa eegaya ma kala garan kartid saaxiibka iyo cadawgaaga xilligan magaalada Kabul waxa jira weeraro iyo qaraxyo badan oo aan la filayn wararka ugu waaweyn waxa weeye laba weerar oo lagu dhintay ayaa toddobaad gudihii ka dhacay Kabul ciidanka ammaanka ayaa si joogto ah u joojiya ambalaaska keena si ay u hubiyaan darbe ziyad است تا دشت برچی رو وقت نداره goobtan wax lagu baaro haweenay foolanaysa ayaa qaraxyo laga baaraya xanuun badan ayaa haya kama gaari doonto isbitaal kale 2018 Taliban ayaa ku qarxiyay Kabul ambulance ay ka buuxeen waxyaabaha qarxa ilaa xilligaasi ambulance si adag ayaa loo baaraa Farkhonde waa kalkaaliso ambulance
sida ciidanka jiidda hore ugu ordaan ayaanu ugu orodnaa bukaankeenna. dhimashada rayidka afghanistan ayaa gaartay heerkii ugu sarreeyay 2018 in ka badan 3,800 oo qof oo ay ku jiraan 927 carruur ayaa la dilay. magaalo dadkeedu gaarsiisan yahay 5 milyan 22 ambulance ayaa ka shaqeeya, taasi oo micnaheedu yahay halkii baabuur waxa uu ku aadayaa 225,000 oo qof. waxa aan la joogay walaalkay iyo 2 adeer ah. adeerkay ayaa igu yidhi halkani waa halis, waxa aan rajaynayaa in qarax aanu nagu qabsan, laakiin guriga annagoo u sii soconna mid ayaa dhacay. waxaan dawladda weydiisanaynaa inay nabad keento oo dagaalka la joojiyo. waannu ka daalnay dagaal dambe maya. iminkana waa faaqadadii ciyaaraha iyo toddobaadkan waxaa ila jooga stuudiyaha maxamed axmed daysane oo ciyaaraha inooga falanqeeya, laakiinse aynu ku bilownay Zinedine Zidane oo ahaa isagu ayaa ku soo noqday inuu tababare u noqdo kooxda Real Madrid 10 bilood kadib markii uu ka tagay kooxdaasi. Isbaanishku sida wararku ay sheegayaan waxa uu bedeli doonaa Santiago Solari oo isagu xilka hayay muddo ka yar 5 bilood oo kaliya. ciyaartooygan dhexda hore ayaa meydii hore ka tagay naadigaasi kadib markii uu 3 jeer u qaaday horyaalada Yurub. Maxamed Daysane ayaa imka ila jooga. Maxamed, sidaad u aragtaa inuu Zidane soo noqday? runtii waa arrin aad iyo aad weyn, aadna u farxad badan. Zidane saan la soconno waa ciyaaryahan weyn ayuu ahay, kadibna tababare ayuu noqday oo saan la soconno 3 mar ayuu ku guuleystay. hadda marka waxay u eg tahay asiga iyo Ronaldo ayaa ka tageen kooxdan. waxaan la soconaa Lopetegui in lagu bedelay asna 4 bil kadib iyo bar la raacdeeyay. Solari lagu dhiibay, waa tii Ajax ay ka adkaatay, marka taas way qaado waayeen. hadda marka dhibaatada ugu weyn waxay tahay Champions League way ka hareen, horyaalkina 12 dhibic ayaa laga horeeya. marka hadda Zidane sababta u soo noqday waxay tahay inuu dib u dhiso kooxdii, taas uu ku han weyn yahay samarka markii sanadka dambe la gaaro inuu ciyaartooy badan oo soo gata sida Hazard Chelsea kala joogo, Mbappe joogo, PSG, Neymar, inuu kooxda dib u soo dhiso ayay u baahan yihiin. marka hor culus ayaa hortaalo, wayna u muuqataa inuu Zidane ka soo bixi doono sababtoo ciyaartooyda kalsooni ayuu ka haystaa. markii hore uu yimidbo waxaa laga raacday Benitez Newcastle joog ayaa laga raacday, kadib markuu la wareegana guul weyn ayuu gaaray. marka waynu ognahay sidaad u sheegtay Daysano arrimaha Real Madrid ma yara hore uga soconaynaa. waxaanu imanaynaa dalkan Ingiriiska oo dadka wacdarihii dhacay xalay toole kubadii horyaalka Ingiriiska. Arsenal waa laga awood badnaa sidaad arkaysa ciyaartii marka la eego ciyaar ahaan bay leeyahay khubaradu, laakiin haddana way guuleysatay. sidee bay Daysano ku dhacday? waxaan la soconay Arsenal in laga awood badnaa oo inta badan Man United kubadda ay haysatay oo gool ku riixeen, laakiin tababaraha oo Arsenal sidoo uu yimid Emre waxa u malaysaa inuu ka bedelay oo ka dhigay koox difaacooda adaga oo 3 ciyaartooy oo dhexda difaaca inuu u dhigay, 2 ciyaartooy bidix midigta difaacna u dhigay oo meeshaas 5 ka dhigay, dhexdeena oo Ramsey iyo Shaka oo horgeey ka soo Shaka gool u dhalay, taas oo suurtagal weysay Man United inta badan inkastay Man United fursado heshay ay ku galaan, haddana way u suurtagal weysay oo waxa u malaysaa in aad iyo aad dhexda loo buuxiyay, gadaalna oo u dhigay Kashoni iyo Arsenal difaac adag inay goolhayoodan aad iyo aad ayuu u dadaalay oo waxa u malaysaa inuu kubada qabtay. Lukaku fursado ayuu dhalay, laakiin waxa u malaysaa fursadii ugu fiicnayd inuu u timid celinta inay ka halawday oo kubada controlka waxa la dhaho oo ay ka halawday hadduu taas mar hore ceshalay inuu ka dhalahay. inkastoo 6 gool uu soo dhaliyay, haddana suurtagal maysa u naqan Arsenal inuu wax ka dhaliyo. waan gartay waynu arkinay, laakiin United waxaan oran karnaa Man United laftigooda maalmaha way isla weynaadeen oo de guulo badan oo isdaba jooga way sira dhigteen, soo lama oran karo. kulley marka aad u guuleysato marka guulda, laakiin waxa u malaysaa goolka ugu horeeyay inuu diheeyo goolhayooda inuu qalad kala Shaka kubad banaanka oo ka soo gamay in diheeyo ay ka dhalato, taas lama filay inay ka dhalato. gool kulaadkii ama penalty laga dhigana inaysan penalty ahayn, kubad jilacsan ay ahayd oo Aubameyang oo ka dhaliyay. marka Man United waxa u malaysaa way dhali kareen goolal, laakiin fursadahoodii waxa u malaysaa inuu Lukaku oo waxaad soo qaaday Daysano saaxiib Aubameyang, Pierre-Emerick Aubameyang, markaas waad arkaysay penalty buu dhaliyay oo u dhaliyay Man United ka dhaliyay, Tottenhamna uu ka dhalin waayay. ninkaas penaltiyadiisu sidee kula egtaan, marna uu dhalinayo marna uu la waayo? horta saad la socota ciyaartii oo la dheelay Tottenham waa tuu rigoor oo ka qalday ciyaartii Man United rigoora loo dhigay. sidaba rigoorada dhalinta
ciyaartooyda laba si ku kala dhaliyaan mid go'aan wuxuu gaaraa midigta ama bidixda inuu u gamo oo meeshaas go'aan ku gaaro ku gamaya midna kubadda ma fiiriyo goolhayo u fiiriyaa marka Aubameyang tii dambe hadda Man United David De Gea ayuu fiiriyay kubadda muusan fiirin De Gea dhinacu aadamahan dhinaci kale ka dhigay haddii oo markii ay la ciyaarayeen Tottenham haddii uu saas yeeli lahay waxaa u malaysaa inuu rigooro fiican ka dhali lahay dadka ciyaartooyda waa weyn oo dhaliyana rigoorooyinka goolhayaha ayay fiiriyaan waan gartay haddaynu hore uga soconno waad aragtay Manchester City iyo Liverpool waxa weeyaan cagta isu saareen way kala bixilayeen dhibic bay mid horeynaysa haddana kala dhibic horeynaysa halkee bay ku dambeynaysaa in sida la isu eriyay miyay soconaysaa oo Daysano kulley way u badan tahay inay lugta isugu hayaan sababtoo City Watford ay 3 gool ka dhalisay waa la soconaa Raheem Sterling 3 gool inuu dhaliyay 13 daqiiqo gudahood uu ku dhaliyay taas waxay dhacday sabdiga ayay dhacday axadii ayadana Liverpool way ka jawaabtay 4 ayay Burnley ka dhalisay oo Mane iyo Firmino ayaa ka kala dhaliyaan marka waxa u malaysaa mid markuu guul gaaro midka kale inuu ka daba gaaray oo waxay u egtaa horyaalkan in la isku dhageeyo aad la isku dhaweeyo oo mid fursad qalada ama dhumiso waxa u malaysaa mid kale inay ka faa'iideysan doonto marka ciyaar 8 ciyaar ayaan ugu soo socdo marka ma u maleynay inay kala hari doonaan haddaynu eegno sida horyaalka Ingiriiska loo kala horeeyo ama table-kooda waxaad arkaysaa in 4 kooxood 4 kooxood ugu sareeya laba waynu ognahay laakiinse labadii kale banaanaa waxay is eryanayeen Arsenal iyo Manchester United iyo Chelsea iyo Tottenham sidee bay noqonaysaa xaaladaas ayadana aad u adagta oo laba ayaa laga rabaa oo Liverpool iyo City waxaan la soconaa horyaalka ayay u tartamayaan laba kale ayaa la rabaa kooxda Tottenham waxa la dhahay horyaalka 3 wiig hor horyaalka ayay qaadaysaa hadda waxa malaysaa inay soo dhacday oo ayadii Arsenal ay hal dhibic u dhaxayso Man United sidoo kale way timid ayadana oo ma la filim Champions League gal la mideen Chelsea way fiican tahay laakiin waxa u malaysaa markii gurigooda ka soo baxday inay guul ay isgaareen qaasatan wiiga Wolves u tagtay hal mar goolka laga toogtay Jimenez ayaa ka toogtay waana ka dhaliyay barbardhac ay yeeshay marka waxa u malaysaa ayadana xaaladdu inay xunta laakiin 4 meel xun ayaa la isla gaari doonaa oo waxay u badnaa doontaa waayahay sidee baad u malaynaysaa iminka ciyaaraha sida loo kala sareeyo wad aragtay sidee bay ku dambeynayaan ciyaaraha soo socda waxaanu ka hadalnay Liverpool iyo Man City waxaanu ka hadalnay 4 kooxood kale waaweyn is ereynaya saadaashu waa sidee Daysano toddobaadkan ciyaaraha soo socda ciyaaraha soo socda runtii waxa u malaysaa kooxaha dhacayo dhexda iyo horeba in la isku wada dhageeyo oo midba kale aysan u ogoleyn inay axsaan u samayso ama ay dhaafto marka ciyaar adag ayaa ka jiro Premier League Ingiriiska koox yar ayaa koox weyn ka adkaato marka xaaladda way adag tahay qaasatan Liverpool iyo City midii fursad beer dareyso waxa u malaysaa inay waan gartay iga raalaha waqtiga nagu yar 8 ciyaarood ba hadhay ay kula tahay inay Yurub soo baxayaan oo ay imanayaan kulley waxa u malay doonaa aniga qiyaastayda Arsenal hadda difaaceedu waa soo adkaaday Tottenhamna waxa u malaysaa in ay soo dhacayso marka xaaladda aad u cakiran tahay runtii ma dhihi karo kooxaas ayaa geli doona waa xaalad aad u adag ayaa Manchester iyo Liverpool waa kugu daray wad mahadsan tahay Maxamed Daysane khabiirkayga kubadda ayuu kaasi ahaa waa tahay haddii aanu barnaamijkeena hore ugu soconno waxaan ku leeyahay Maxamed wad mahadsan tahay mar walba waxaad nagala socon kartaan BBC Somali Facebook fadlan raadi BBC News Somali halkaas oo aad ka heli doonto muuqaalo falanqeyn dheeraad ah iyo wararkii ugu waaweynaa si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka nagala soco BBC Somali Twitter iyo Instagram waan gartay barnaamijkeena caawa waxaanu ku soo qaadanay iyadoo dalkaasi Ethiopia aynu ognahay in diyaaradda Ethiopian Airline ay dhacday oo baaritaanka uu socdo iyadoo imika la helay sanduuqii diyaaraddaasi ee madooba dabeetana ay doonayaan guddida baaristu inay xog halkaasi ka helaan xog dheeraad oo ku saabsan sida diyaaraddu u dhacday waxa kale oo aan caawa wareysanay qaar ka mid ah qaraabadii Soomaaliyeed ee halkaasi iyagu ku dhintay waxaanaynu ognahay in ugu yaraan 6 qof oo Soomaaliyeed ay diyaaraddaasi saaraayeen barnaamijkayga caawa intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa waxaan dhammaanteed leenahay waa mahadsantiin daawashadiina sidaas iyo habeen wanaagsan